markay ku dooratee dunida macaan waa ku tiirsiye u malayn maayo inaan daawan inay jirto filinka Doom 3 oo ahaa sanadii 2013 aan gudaha la shakadina ugu horeysa habeen horta muuqaalka inoo shadkareeya meel leedna gaarsiiya Doom 3 waa filin soo baxay sanadii 2013 kana dhigay waadaro dhammaan masraxyada caalamka oo dhan gaar ahaan Korean India waa filin xilligiisii noqday filinkii ugu qiimaha badnaa ee soo baxa xilligaas sidoo kale noqday filinkii ugu dhaqaale xaraynta badnaa ee soo baxa xilligaas iyo dhammaan filmadii ka horreeyayba sababta dhaqaalihiisa wuxuu gaadhay filinkan ku dhawaad 70 milyan aan lacag gaaraysa 68 milyan iyo jajab oo dollarka Mareykanka ah wuxuuna dhigay skoor cajiib ah runtii Doom 3 wuu ka duwanaa silsiladihii hore ee labadii xalqadood ee hore ee hoggaan kala ahaayeen Heretic iyo John Abraham sidoo kale kumana ekin tooganimo oo kaliya balse waxay ahayd revenge yani argoosi harfaan u socota argoosi Saahid iyo Samir waxay argoosi ugu jireen inay u argudaan dhibkii loo geystay aabahood welibana bangigii u geystay ee u argudaan iyagoo adeegsanaya xeeladooda haddaba Doom 3 runtii wuxuu ka mid ahaa ugu caajibsanaa xilligaas ee soo baxa markii dhanka histiga yani harfaannimada actionka runtii aad u qurux badan sidoo kale filimka door cajiib waxaa ka qaatay Katrina Kaif oo inoo soo dhigtay macnawi ahaan in ay haweenku furawi yihiin ragga weliba ragga sirta laga soo saari waayo inay haweenku sirta ka soo saari karaan si fudud sidoo kale in ay raggu jilasay yihiin jacayladooda fil aad qurux badan runtii aniga shakhsiyadeedana aan imaamadiisa waa hore halkaa iska dhigay haddii aadan daawan fursad waxaad haystaa inaad daawatid mid ka mid ah filmadii ugu cajiibsanaa ee soo baxa sanadaas Makee ku doonto ku dooratee dunida caawa ku deefsiye Maisku dayo markee ku diiday waliduluwa dantaa kahaysay Maisku dayo markee ku diiday waliduluwa dantaa kahaysay Salaam saaxiibayaal hadda ayaan salaamaya muuqaalkan inoo shirkareeya